السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الصوماليين من والبا الدنيا دافيدي كجوكتان يعني سو dhawaada walaalkiina bashka balcad fashiyaal waa isku soo noqosho kale oo xiiso leh yani soo dhawaad maanta ayadin wada bilaal wiil Kenya ugu shidan xaafadda Islii ee Soomaalida ku badan tahay maanta bilaal ayaa sheekaysan doona daawashada iyo qosolka iyo kubantiga waa dhankiina asxaabta soo dhawaada bilaal soo dhawaad asxaab salan عليكم السلام أصحابي magacaygu waa Bilaal Maxdiin ku soo dhawaada channelka aad iyo aad u mahadsantahay bilaal soo sare aad baan ku salaamay waan mahadsantahay sida quruxda badan ee maanta ii soo booqtay ma fahanti bilaal maanta waxaan ku weydiinayaa su'aalo yar oo iskaftana ah horta waxaan maqlay inaad u sharaxan tahay madaxweyne waxa jiro musharax madaxweyne inaad tahay oo dhalinyarada Soomaalida wax u qabartaa maqlay wax ma jiran insha Allah waa runtaas marka waxyaabo fara badan dalka ka bedel doonta waan jeclahay taas insha Allah hadii run ay noqoto waa jeceshahay aad bilaal wali horta wax oo sheegadan kula kaftamo wax jecel wali ma sameys wali wajacel ma gelin laakiin wali ma aragtay soo maray wax jecel la soo maray maya way bilaal maanta da meel kugu casuum oo meel in kugu baco oo sheeg maanta meel kugu soro cunto nooc jecel lahayd maanta inaan kugu soo dhameeyo dooqaaga muxuu yahay wallaahi ana horta haddaan saa usii fiiriyo saan usii fiiriso waxaan jecel yahay ugaali sukuma soora soor caana ugaali sukuma Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa soor way ugaali inta laga dhaha Kenya jooninka Kenya ku nool yahay ninkan ugaali iyo caano dalbada soor iyo caano waayahay sudow bilaal madaxweynaha Soomaaliyeed maanta sanadkan hadda soo socdo halka balka dhiminay hadda lacag ku guuleysato maxaa bedeleed haddaan ku guuleysto waxaan ka bedeli lahaa horta dhalinyarada waxaan u sameyn lahaa meel ay ku baashaalaan jadwal una maya sida meelaha ambiraha lagu ciyaaro iyo waxa baan hagaajin lahaa iyo hadda madaxweyne naqad bunul dhalin ma habelad iyo wax walba dhalinyarada u baahan yihiin oo u sameeyay dhalinyarada garab taagnaan ee dadkii dalka wuxuu u baahan yahay sileed aad u marsantaa bilaal wali isku dayda sheeg wadamadan qurbaha ila aad Yurub iyo waxyaabo suri tahriib isku dayda tahriib suriga tahriib ma wali isku madayn haddana uma jeedi waayo waxaan ka jecel yahay dhulkayga ka jeceshahay inaan joogo wasaanta waa ku raacsanaa midaas bilaal way hada barnaamijka hor usii gudub kalna dhanka su'aalaha hada gudubno su'aal hada weydiin ma ka jawaabi kartaa waan ka jawaabi karaa waan isku day inta aan awoodo صح caasimada Afrika xagee ku tala caasimada Afrika hadaan isku dayo waa Zambia caasimada Afrika Zambia ma ku tala caasimada Afrika maana caasimada Afrika hadaan isku dayo waa South Africa caasimada Afrika South Africa ma asxaabta ninkan hadoo su'aashaas sahay iyo hadoo qaldaba commentiga nagu soo reeba way midaas waa waad ka jawaabtay ama waad qalday commentiga ka soo doonaa hadaan mid kale kugu daro dhiiga xalaasha ma sheegi kartaa wuxuu dhiiga xalaasha hadaan isku dayo waxaan dhahaa xoolaha maanta waxa la yiraahday asxaabta waxa la u sheegay oo ku daawanayso dhiiga xalaasha su'aasha ma garanay way midaasna commentiga ka soo doonaa adiga yani wax su'aalo ah oo aad weydiiyayso ma jiraan hal ilo wixii aadan ana horta isku dayo waxaan ku weydiin lahay adduunka wadanka ugu qanisan maxay waay wadanka ugu qanisan qani macna waxa uu gacan farash ma laga wadaa maya adduunka ugu taajirsan wadanka adduunyada ugu taajirsan Mareykanka waano asxaabta la weydiina taasna hadaa ka jawaabtay iyo daaqaldi horta in adiga ina ii jawaabsan raaw daaqaldo kadib asxaabta ay soo jawaabaan laakiin sax ina qaldada laga rabaa ma ka jawaabtay sax maano way adiga wadanka adduunyada wadanka ugu baaqirsan sheegay oo ugu baahida badan leh adduunyada wadanka ugu baahida badan hadaan isku dayo waa Ethiopia وخلط واتسني وخلط مركلي كوعلي مركلي ودنك الدويد ugu baahida badan leh هذا ما أقنع قوانتك متى ما أقنع متقن سما واي wax kale oo ibijiis ma jiraan waxaan ku weydiinayaa adiga
waxaa sheegtaa wadanka ugu horeeyay oo soo saaro aaladan la isticmaalayo ama taleefanaha iyo waxa Facebook miya TikTok miya mas telefoonka dhan telefoon dadka soo saarayna mas baraha bulshada iyo Facebook wadanka ugu horeeya telefoon soo saaro wadanka ugu horeeya telefoon soo saaray hindi miya hindi ma qalabna way ma aqaan midas abadan waa qaldi waa China miya okay way asxaabtida ninkan ka jawaabay hadda adiga mar kale fursad ku siiyo adduunyada maxaa ugu macaan adduunyada waxa ugu macaan wax walba wax bay ka macaan yihiin waxa hal leeno sheeg waxa adduunyada ugu macaan inta la cuno ama inta la laqo waxa ugu macaan adduunyada ani ahaan inta la cuno waxa ugu macaan sakar la ilaha illa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam sakar ma wax ka macaan jirana ma garanay adiga waxa adduunyada ugu macaan sakar ku leeyin way midaas ma qaraday kubantiga asxaabta hoos ku soo qoray adduunyada waxa ugu macaan way hay su'aal ku hartan jiraan su'aal ku hartan su'aala waxaa sheegtaa adiga waxa oo ku siido oo aan sidid waxa isido oo ku siido waxa aniga way isidaan iyo kun waa sida way nafta ma waa ka jawaab يعني إذا يصير كرتو أنا أصير كرا واي النفط لانتد من شكري أدين لان أنا إذا لانتد من دقائق كرتو إن أنا بهواي واي هي إن هذا أديك متكلم كسي إن واسلا رaf مقتي أدوية محا إن شيء إن أوجو نكسن أدوية محا أوجو قيمها بدل اللي محا أوجو خالصين أدوية أنت اللي هلو محا أوجو خالصين الدنيا أنت اللي هلو أوجو خالصين أنا أديك إن في أهانت هذا محا أوجو خالصين أدوية إناش adduunka mise adduunka qofka bini'aadanka ah inuu adduunyada korkeeda ka helo maxaa ugu qaalisan inuu helo wixii oo nafsadiisa maareynaya sida lacagta meel fiican oo aseexato hanti la noqoto hantiya ugu qaalisan waayahay midaasni waa qalad aniga hal xabaa ka sheeg way adiga laakiin kulli waa wada qaldaniyo anna waxaan ku weydiinayaa abadaas qalad waa asxaabta adduunyada waxa ugu muhiimsan oo ugu qaalisan kumantii ku soo qor waa idin sugi doonaa midaas aniga bilal waa idin sugina way maxaa kale oo ay ibidisa oo gaajbaba adna waxaan ku weydiinayaa waxa qaadi karto oo wuxuu qaadaadan qaadi karin aniga waxa qaadi karo maya waxa aniga gacantayda ku qaadi karo wixii qaadan aan qaadi karin geedkii yiriska Greek waayo baabuurtu qaadi karaa aniga gacanta ku qaadi karaa Greek way waa ka jawaabtay waayahay hadda aniga fursad kale ku siiyo waxaad ii sheegtaa xilligii daacuunka socday horta war magaysa halka magaalo kaliya oo daacuunka gaarin adduunyada dhan wuu saameeyay xilligii daacuunka laakiin hal wadan aa jirto oo gaarin daacuunkii wadanka oo noqon kara wadankaas haddaan isku dhibo Ethiopia maana Ethiopia adiga wax kas Ethiopia la wadaba Ethiopia la horta ay wad way qalbigayga hadal su-aashaas haddaan isku dayo hal magaalo ma dhahda mase hal wadan kulli adduunyada dhan wuu saameeyay hal magaalo jirto oo gaarin daacuunka inta kale wuu gaaray adduunyada kale wuu saameeyay hal meel bis laga badbaaday maka ma sha Allah waa saxda oo ku guuleystay wadan okay waxa kale oo adiga hadda wali ku yeer soo dhigi kartaa qalabtu waa istumeynaan yaadi أنا بلادنا أسكت ده سؤال كله وحن كويدينا وحشكتا أحلى سوري ده سؤال أنسور هذه وحشكتا آية القرآن كوير آية القرآن كوير سومنا در عدو waxay sheegtaa hadii aan Janis kale ku siiyo wax suurad fa lagu tilmaamo oo fa ku jirin ما قصدي إنه حن سؤالي إيش هو هذا خلطه كونتي دكتور ناس صحيح أنا شعبي ولا شنت سومالان داوته ويقول كونتي كسودي بين صورة أو فأك بلاوته أو نفأ كجرن صورة فأ لو تلمع ما فأ أنا مقولت إيه ما قنتها صورة ده هي إن كونتي أصحابته حق هذا مرتي إذا إن صورة فأ لو تلمع أو نفأ كجرن هذا كل شيء حتى وفاته الحمد لله فأنا جرتو وحنا لو تلمع فاتحة أوكي إن بلال وصدق كرتا واحد كله إن حاجة جرو سؤالي وكاجي جوابي دونا
waxaa sheegtaa aayadda qur-aanka ugu weyn. aayadda qur-aanka ugu weyn yaa ayuha aladiina aamanu ma aha aayadda qur-aanka ugu weyn aayadda qur-aanka ugu weyn acuudu billahi min shaytaani rajiim acuudu billahi horta aayadda qur-aanka ugu weyn aayadda qur-aanka ugu weyn niyo tama ila gamat wallahi midaan ma hayo waa kuxumaa sorry ifaa'iidada baniyo aayaddaas waa aayatul kursi waay. oh my god waa fashilmay asxaabteeda waan karaal gelinayaa su-aashaas aqalday inkastoo qur-aankan laysoo baray haddana waa ma aqaanasay waxay iga naqdeen asxaabteeda aad baad mahadsantihiin. waayahay gunti iyo gabagabada kusii suuqaynaa horta adiga waxaa tahay su-aalahaas isweydiinay asxaabta sida quruxda badan le u daabatay aba ay kumantiga ugu soo bixinayaan aad bay ugu mahadsan yihiin. maanta wuxuu ahay midkan ila joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nin isku soo sharaxi rabo sanadkani cusub waa musharax dhalinyarada soomaaliyeed u taagan. asxaabta ninkan halasoo ishaga dhiirigeliyo kumantiga halagsoo ammaano haloo socday ninkan waa musharax u taagan dhalinyarada soomaaliyeed in wax u qabto. hay maxaa kale oo soo bandhignaa anigana waxaan leeyahay saxaabay waa markii ugu horeysay oo aan channelka soo muuqato aan channelka soo booqdo ama aan camera hor fadhiisto. sax marka taasna waan ka raali gelinayaa. waxaan leeyahay barasho wanaagsan oona magacaagu saddexaad u sheeg horta asxaabta magacaygu saddexda waa bilaal muxudiin. marka waxaan leeyahay halii soo codeeyo si fiican waana idin salaamaya asxaabta dhan adduunka meel walbay ka joogaan gaar ahaan soomaaliya khaasatan reer balcad. asxaabta aad mahadsantihiin gunti iyo gabagabada ayaa kusii suuqaana kaasi waxaa ahay bilaal maanta ku kulannay kenya gaar ahaan nairobi xaafadda islii ee soomaalida ku badan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidaas iyo nabadgelyo aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda sida quruxda badan leh ee aad barnaamijka ugu qayb qaadateen. sidaas iyo nabadgelyo.